tarta inta leeg looma baahna in la sameeyo sidaa darteed dawladda Mareykanka federal government-ga state government-ga local government-gu waa inay soo dhaxgalaan arinta waa inay wax ka qabtaan. I think everybody understands this is a lifeline that cannot be jeopardized. It cannot be jeopardized by any means. It is a lifeline that every immigration went through, because when immigration comes to this country, always half of the family comes here, half of the family is left behind. And in that generation, they are interdependent. They live together. They cannot... Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigu waa Siyaad Ali oo ah senior constituent advocate US Senator Amy Klobuchar. Hawshan muddan ku soo jirnay. Anagu waxaan nahay goli sharci dejinta qoraal baan u dirnay. Cidii ay khuseysay waxaan ku rajaynahay in arrintan xal loo helo waayo waa laga maarmaan bulshada Soomaaliyeedna arrintan halbowle u tahay dad fara badan oo dhibaataysan baa jira marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda maaliyaddu inay warbixin cadna siiso qoraalkii ugu dambeeyay oo senatarka u diray Senator Klobuchar ay u dirtay Hillary Clinton iyo Gaynor baan ka sugaynaa jawaab intii ka horeysay saraakiisha ayaa iyaguna maartay hawsha ku hawlana marka waqti holiday lagu jirana way ku soo beegantay laakiin arrintan waa muhiim waad aragtaa dareenka dadka waxaan rajaynaynaa in xal si dhaqso ah loo helo dadaalkuna ma yara waxaan ku rajaynayaa fursadan aad siisay oo ku maadsan tahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحن ما تهلكن أنا ما waxay tahay inaan support gareyno xawaaladii naga xiran magaalada Minneapolis maanta Soomaalida arkaysa ilaa culumadii masaajidada ilaa xawaaladii oo dhan waa wada joognaa waxaan leenahay in dawladda Mareykanka aan ka codsanayna inay dib noogu furaan xawaaladaha as Soomaali community anaga waxaan taageersanahay xawaaladahaas waxay noo fududeeyaan dadkeena Soomaaliya jiro haddii aan wax laga qabanina dad badan ayaa ku baaba'ayo oo Soomaaliyeed oo hadda ayaan hore wax ka dhacay 6 months waan ogeyn feminine ka dhacay haddana hadda lacag aan loo dirin dadka bisha 30 waa maanta haddana la dirin ilaa bari dad badan ku baaba'ayo marka waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa in wax laga qabto Soomaalida inaan isku soo baxno jamcada daman aan tagno state aan tagno St Paul capitalka si aan u muujino waxa aan doonayno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la dhahay Mukhtaar Cali Buraale waxaan halkan u joognaa maanta inaan tusno ummadda Mareykanka iyo dawladda iyo bangiyadaba meesha ummadda Soomaaliyeed ka taagan tahay haddii ay waayaan habka kaliya ay dadkoodii ku taageeri jireen oo ahayd inay u diraan lacagaha yaryar xawaaladaha iyagoo marsiinaya aniga ku hadlaya magaca ururka xawaaladaha loo yaqaano SAMSA USA oo website-koodu yahay samsausa.org waxaanu shalay dhammaan wada xidhnay xawaaladihii aanu ku haynay gobolka Minnesota kuwaasoo shaqadii ay u istaagtay markii ay waayeen bangiyo ay lacagta geeyaan maadaama ay dadka lacagaha ka qaadaan ay marsiin jireen bangiyada ku yaala Mareykanka bangiyadiina ay joojiyeen meel ay lacagta geeyaan ma jirto sida la hadligeed xawaaladii waa la wada joojiyay shaqadoodii inta la helayo xal taasna waxay ku soo beegantay bil dhamaadkeed oo runtii ay taagnaayeen goortii biilasha loo diri jiray ummadda joogtay Soomaaliya iyo xiriyaha qaxootiyada taasna waxay keentay in maanta dadku isku soo baxaan meesha tan goobtan jidkan weyn kole dad fara badan aad u soo baxeen iyagoo sheegaya dhibta arrintan ay ku hayso iyo haddii la waayo habay lacagan ku diraan in dad badan way doonaan nolol maalmoodkoodii ay ku noolaayeen wadanka bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Cali Boos maanta waxaan ka mid ahay dadka ka soo qayb galay mudaharaadka lagaga soo horjeedo xiritaanka xawilaadaha ka hawlgala Mareykanka khaasatan Minnesota oo ay ku nooshahay Soomaali aad u fara badan dadku ay ku qiyaasaan ilaa 90,000 oo qof oo Soomaali ah xawilaadahaasna waxa loo xiray bangiyada isticmaali jireen oo lacagaha wire gareyn jiray ee Afrika u diri jiray ayaa yiri ma qaban karno sababtuna ay tahay sababo ay ku sheegeen xagga amniga oo yiraahdeen lacagahaasi waxay ku dambeyn doonaan gacan argagixiso iyo waxyaabo la mid ah marka wax kasta way dhici karaan laakiin kulli qabowga faraha badan maanta waxaan u taaganahay inaanu dareenkayga ku muujino sababtoo ah anigayga hadlaya waxa jira lacag baan bil walba diraa waxaan u diraa ciyaalan dhalay ciyaalkayga yeeli maayaan aabihiin lacagtii soo diri kari maayo bangiyada baa la xiray sababtoo ah iskuul bay dhigtaan way u baahan yihiin wax walba marka sida awoodeed waxaan aad iyo aad uga xumay arrintaas
dadaalkaasna waa wadaynaa dawladda Mareykanka oo culays ka saartay bangiyadana kulli sharciye ka soo saari doonta iyaga yaqaan qofkii argagixis uga baqayaan say u raadsan lahaayeen laakiin business caadiga oo maaragtay legitimate ka maaragtay caadiga inayna culays saarin oo maaragtay aan la isku darin wixii wax kasta baan rajaynaynaa marka aad baan u mahadsantiin TV-ga St. Cloud ka hawlgala St. Cloud Times oo ka soo qayb galay ilaa St. Cloud ka yimid 94 kaad soo martay marka duraan dursee wanni bakka tana wal baaneef ga malaga akka arguun dandeenyu jaanii saniifu aan bakkiniin raadala duraan dursee maqaan ki Abdallah Nanjaama Tawakkal Money Express achin dalaga saniifu ga an agency saniif bakka takka taa'ee Tawakkal raabu'eetiin asirraa madu bachaa jiraati saniifu ga namni ardaa wachaa jirtan hundinuu ga bakka tana akka dhuftanii qoodarraa fudhatan hiriirarra baanee jiru kana saniifu akkasitti kunoo deebinee yoo rabbi jeega waan takka furmaata akka rabbi nuu godhu waan nuti asigoon mata keenya khachidi barbara dhufne miskiina sanii waa ergaa jirra kharabralle ergaa takkal jiru waan nurra hafe sanu namu anga dandeyti saatiin irbata ka taw shantama taw kanatti ergaa jira akasanafu yo rabbi jeega ya lama biralle deebine waan kana akka manni nu beexe nu cina dhabatte waan kana mufata nu xannu barbaanna lama dalle deebine kono wanni makiinaan na duba dhabatun len campaign tan haare ma banu dem takka akaruftani yoo namni waa kaabi waa fudhachuu barbaade takka itti taaksii magaalaa keessa illee taatu barbaadu akkarra nu qoodarraa fudhatan kunoo makiinaan kaampaanii haaraa illee tana.